suuqa adinku idin baahan yahay runtii marka la yiraahdo shaqo la'aan jirta laga cabana laakiin marka qaar waxa ku soo wacayo dad rabo dad developers rabo laakiin developers ka ay rabaan ma ahan qof hadda asiga in wax la baro rabo ma aha xirban developer farta ka xiranay rabaa macnaha dadka tabaarig ICT noloshayda iyo ma aragtay qofka ahay saameyn runtii wuxuu ku leedahay xoogan waa shirkadda anigoo jaamacadda dhiganaya ayaan maxaa la yiraahdaa ka shaqo bilaab mudada adiga 14 sano laga joogo waxaan rabaa ugu horeyn inaan halkaan ugu hambaliyeeyo ardayda 150 ka ah maxaa la yiraahdaa fursadan dahabiga ah runtii heshay annaga xilligii maxaa la yiraahdaa idroofi aan wax ku soo baranay fursadahan iyo ma aragtay iyo wax u dhow runtii lama heli karin waxaan xasuustaa markaan annaga xaaladda da'da adinka ku jirtaan iyo sanadka iyo waxbarashada aan maraysaan annaga xaalad waxaan ku jirnay macna aragtay dagaal iyo qax ayaan wax ku soo baran laakiin adinka waxaa la yiraahdaa intelligence maxaa la yiraahdaa internship ku barataan oo waliba shirkadaha tiknoolajiyada ugu horeysa waddanka leedinka siiyay ayaa xaflad weyn inta lagu qabtaa wasiiradii ladin keena ladinku hambaliyana marka jaanis iyo fursad waxa haysataan runtii mar la arag ah oo ay tahay inaad sida ay tahay ugu faa'iideysataan runtii waxa aad baranaysaan iyo filliga iyo jaaniska heshaan waa mid oo ma aragtay wax badan mustaqbalkiina iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed aad ugu bedeli kartaan waxaan rabaa arrinkan hadda oo 150 ka arday lagu tababaray waxay ku soo aadaysaa xilli dawladda Itoobiya iyo dawladda Imaaraadka Carabta iska kaashanayaan soo saaridda 5 milyan oo coders ah macna mashruuca ay hadda ay ku dhawaaqeen hal sano gudahood 5 milyan in lagu soo saaro annagana hadda waxaan mareynaa 150 inaan soo saarno marka la isku bardhigo halkii adinka idan kamid wuxuu ku aadi doonaa 150 maxaa la yiraahdaa coders oo upcoming ah oo soo socda marka waxaa la rabaa inaad dadaalkeedii iyo kartideedii runtii inaad la imaataan oo ma aragtay dadaal badan aad gelisaan resource ma yara meel walba ayuu maxaa la yiraahdaa available yahay marka maadaama aniga tabaarig ICT noloshayda iyo ma aragtay qofka ahay saameyn runtii wuxuu ku leedahay xoogan waa shirkadda anigoo jaamacadda dhiganaya ayaan maxaa la yiraahdaa ka shaqo bilaab mudada adiga 14 sano laga joogo junior software developer ayaan ka soo noqday ilaa markii ugu dambeysay software development department-ga oo ka tirsan tabaarig ICT aan madax ka noqday marka ayadu baanta barnaamijkan taabagelinayso inaan goobjoog u ahaado waxay ii tahay runtii fursad badan ay ii tahay marka waxaan rabaa ardayda hawshaas ka faa'iideysanayso runtii inaan maxaa la yiraahdaa dardaaran aan siiyo marka waxa ugu horeeyo on kula dardaarmayo horta waxa waaye resource waxa haysataan aad u badan oo aanan la heli karin tusaale anaga markii oo ma aragtay jaamacadda aan dhiganaynay jaamacadda internetka ay isticmaalaysay wuxuu ahaa 2 MB ana jaamacadoo dhan lacagta laga bixinayaan macnaa wax aqliga galay ma ahayn macnaa resource badan ana ku baxay haddana waxa laga yaabaa qofka celcelis $1 oo maalinta ku shubto ayuu internetka uu xawaaraha sareeyo macnaha uu ku heli karaa waxa speedka afiriso laga yaabo qofka inuu 100 MB oo haysto qof kaliya markaasna jaamacadda oo dhan jaamacadda Muqdisho markaas dhiganayo waxay isticmaalaysay 2 MB markii research noola diro waxaan tageynaa koobaha internet kayfkaan tageynay oo aan ma aragtay research-gii wixii noola diray aan ka raadin jirnay adigana maanta waxa laga yaabaa mobilka ChatGPT ku joogo isla markii jag waxa haysato ma aragtay ku xalinayo adoo isla meeshii markii joogo sidoo kale xilligaas annaga hadii aan wax soo saarna xataa oo wax isku dayno oo iqtiraaci wax la sameeyo platformyo lagu soo bandhigo macnaha messenger xilligaas Soomaalida internetka isticmaalayso waxay ka yaraayeen 200,000 oo qof ay ka yaraayeen markay la sameeyay 2013 meelaha hadda Soomaalida internetka isticmaasho waa العلس 3 مليون أو قفل صومالية إنترنت يوزرز أيا أونلاين oo aad waxyaabaha keentaan macnaha isla markiiba aad ugu faa'iideysan kartaan marka fursadahaas ayaa idin hor yaala marka waxaan rabaa markii aad goobta shaqada aad joogtaan inaadan ku fikirina inaad koodka xoog saartaan macnaha syntax-ka iyo waxa qormaaya aadan xoog saarina
aad wax xoog saartaan inaad wax ku xalisaan dhibaatooyin bulshada inaad ku xalisaan inaad logiga iyo algorithm-ka waxaan ay ku dhisan yihiin inaad fahamtaan aad xoog saartaan suuqa adinku idin baahan yahay runtii marka la yiraahdo shaqo la'aan jirta laga cabana laakiin marka qaar waxa ku soo wacayo dad developers rabo laakiin developerska ay rabaan ma ahan qof hadda asiga in wax la baro rabo ma aha waxay developer farta ka xiranay rabaa macnaha dadka developerska marka inaad adiga juhdi iyo dadaal ah isgelisid ayay ku imaan kartaa maxaa la yiraahdaa in la helo anaga jaan sida aan haysanay taas bedelkeeda faa'iido helayna oo ah waxna mashquulinayo macnaha way yaraayeen oo waxa interruption kan tirada badan ee ma aragtay ma jirin oo maanta ku saameeyna maanta waxa laga yaabaa social media ku jirta marka waxa u baahan tihiin focus inaad focus saartaan wax aad qabanaysaan waxaan ku talin lahaa xilligan la joogo oo aad hawshan baranaysaa inaad akhrisaan buugliga deep work oo hawshan ma aragtay wax badan ka geysanayo filliga uu xoogan oo ka hadlaayo iyo tusaalooyinka uu soo qaadanayana ay ka mid tahay dadka tiknoolajiyada ku jiro caqabadaha kale oo hadda jira waxa waaye dadkii ma aragtay software developers ka sameeyay waxa laga yaabaa React oo barnaamijyada qaadanaysan qayb ka ah dadkii soo abuuray laga yaabaa inay saaxad in ku jiraan ayaga laftigooda ay system sameynayaan marka hawshaas marka waxay u baahan tahay dadaal badan inaad gelisid qofkaas inaad competitive gareysid dadaal badan ayay really ay u baahan tahay marka waxyaabaha oo cajiibka waxa kamid ah oo aan rabo inaan idinkaga sheekeeyo fursadan ugu faa'iideysto xilliga hadda la joogo dadka dhan awareness-kooda macnaha muhiimadda tiknoolajiyada iyo waxaan ay leeyihiin aad ay u fahamsan yihiin laakiin marka ka soo qaato 10 sano ka hor dadka fahamkan buuxa macnaha miisan haysanin waxa laga yaabaa askarta hadda ayaga TikTok ku jiro oo wixii ka fahamsan laakiin askarta 10 sano ka hor qofkii waxyaabaha ay fahmi waayeen tiknoolajiyada la xiriir ay ku arkaan waxa laga yaabaa inay xiri jireen ma aragtaa qiso oo runtii sina fanni u ah laakiin waaqic aan ka soo gudubnay ka turjumayso arday jaamacadda mushasal dhiganayna wuxuu ahaa sanadkii naga horreeyay wuxuu abuuray Facebook group ayuu sameeyay Facebook group kaas marka dhalinyarada xaafadaas ayuu marka sawirradooda iska soo dhigdhigaa maalin damnin odaya oo dadka xaafadda ma aragtay caanka ka kamid ah sawirkiisa la soo dhigay marka commentiyada dadka soo qorqoraya mid kamid ah isaga soo qoray gudoomiyaha xaafadda markaas in gudoomiyaha xaafadda lagu dhaano waxay ahayd ya mushkilad badan ku gadaamay faahfaahintay ninkii nin South Africa joogan soo wuxuu yiri inuu gudoomiyaha xaafadda in lagu magacaabo maqlay iyo waraseta ninkii waa ma aragtay la yaab ku noqotay ra'yi magacaabo waxa waa internetka aan ka dhaxarkay ina inta gacanta ka qabtay wuxuu yiri in waxaan rabaa mees wixii lagu magacaabo inay soo tusto internet kayf uu geeyay sawirkii tusay iyo commentiyada laga bixin waa u akhri ninku wuxuu yiri yaa waxaan sameeyay hebel waxa la soo dhigay saldhigga degmada wardhigley oo tagay askarta OB ku qoraysay waxa ay dacwo maxaa qabtaa markaas wuxuu yiri waxa waaye qolka ciyaalka xaafadda sawirkayga la soo dhigo askari aboon oo dadaalayo ahaa isla markii marka go'aan oo qaato wuxuu yiri qolkaas maxaa la yiraahdaa degmada ma ogta waa maya saldhigga ma ogta waa maya laba askari inta tir wuxuu yiri qolka la soo xiro ninkii waxa la yiri orod qolka soo tis link dacwada kii kale xabsiga la geliyay marka qolkan oo dadka ay soo kula ogeyn dawladda sawirada soo dhigays xabsiga la geliyay ninkii wasigana sawirkiisa soo dhig waa soo waday wuxuu keenay internet cave-kii sawirka laga dhex tusoo keenay faahfaahintay marka waxay noqotay in internet meeshii ma aragtay goobta ganacsi in quful lagu dhufto la xiro oo dadkii iska lahaa ganacsigaas ay saldhig intay tagaan in la soo furdaamiyo horta taliyay meeshii joogay laga dhaadhiciyo waxaan qolka la sheegay inuu yahay qol oo farjuwaala oo san jiray markay dhacayso waa 2015 waa ina wacyiga xaaladda markuu saas ahaa hadda wacyigeeni macnaha wax badan ayaa iska bedelay
marka waxaan rabnaa jaanisyadaas inaad really sida ay tahay ugu faa'iidaysataan waxaan la yaabaa waqti badan inuusan jirin waxaan rabaa inaan intaad hawshan ku jirtaan inaan 5 dardaaran aan idin siiyo tan koowaad ay tahay horta kow waxaa iska dhistaan basic ha yareysanin waxaa laga yaabaa waxyaabaha basic ah ee programming iyo development ku saabsan yareysanin hasdiin HTML iyo CSS waa soo baratay hore u taqaanay hadda xoog saar waa asaaska oo waxa waaye maxaa la yiraahdaa ayaga waa waxyaabaha basic ah sida programmingka algorithmskooda iyo waxyaabahaas basic ah inaad xoog iska saartaan sidoo kale inaad waxa aad soo baratay ama inaad real projects aad ku apply garaysid tusaale ahaan markii ugu horeyso programming iyo wax lagu tuso shaqada koowaad aad qabataa to do listiga aad isticmaasho oo Google leedahay ama Microsoft leedahay mobilkaaga ku jira iska dhaaf mid adiga aad samaysatay to do list ka dhigo inaad real projects oo wax ku xalin kartid samayso sidoo kale version control-lada wax lagu xaliyo xoog inaad iska saartaan sida gid iyo wixii la mid ah sidoo kale inaad wixii aad baratay ardayda ma aragtay aad dadka aad wax isla baranaysaa inaad kula noqotaan oo group inaad wada shaqeysaan mid ugu dambeysana waxa waa inaad ka fikirtaan waxa aad soo barateen inaad problemyada wadanka ka jiro aad ku xalisaan tusaale abaaraha wadanka ka jiro inaad dhahdaan okay aniga programming aan barta abaaraha say u xalin karaa okay inaad maxaa la yiraahdaa amni darro jirto amni darrada say ugu xalin karaa okay waxaa jiro maxaa la yiraahdaa caafimaad darro say ugu xalin karaa waxa soo dhan macnaha inaad focuska aad saartaan oo real macnaha problems bulshadeena haysto inaad ku xalisaan aad isku daydaan tusaale Soomaaliya waxay kamid tahay wadamada ugu umuraacashada badan adduunka waxay keeni kartaan problemkaas wax lagu xaliyo oo software yar inaad u sameysaan oo tusaale isku xiraayo gabadha nursing-ka baratay ee jaamacadaha dhigto iyo maamada joogto ma aragtay goobaha barakacayaasha oo laga yaabo in xaaladii markay ur qaado iyo seeta aan la socon karin oo gabadha markii intee la baxo barakaca goobaha ay joogan la tago laga diiwaan geliyo qofkii ur leh iyo bilsha uu marayo oo notification oo soo dhaco gabadha nursing-ka la hayo okay gabadhu waxay gashay week hebel gashay marka waxa u baahan tahay inaad u tagto xaaladeeda ka warqabta loo sameeynayo intaas waxa weyn ay runtii ay ka xalin kartaa problemkaas anaga haysto marka intaasaan kula dardaarma suumanka dhuuqsada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.